duruufaha adag waxay sameeyaan qof adag oo aan u jabin dabaylaha isdabajooga ah ee nolosha. waa uu dhashay kadibna waa uu barbaaray, waxaa la geeyey goobo waxbarasho. waa uu qalin jabiyey darajo sare, weliba darajadii ay jeclaayeen saaxiibadii. waxa uu ku noolaa dalka Soomaaliya, waxa uu noqday soo saare, caawiye iyo madaale waxbarasho. kani waa Naaleeye Yuusuf Shire. magacaygu waa Cabdullaahi Xareed, halkanina waa kanaalka Ilayska Dunida. haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqato channelka Ilayska Dunida, fadlan subscribe dheh, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Naaleeye Yuusuf Shire waxa uu ku dhashay gobolka Sool sanadii 1985. waxa uu ku koray gobolka Bari iyo Nugaal. Naaleeye Yuusuf Shire ugu horeyn waxaa la geeyey dugsi Quraan sanadii 1996. waxa uu dhameeyey 1999, taasoo la macno ah inuu 3 sano ku dhex jiray xifdinta iyo sugidda hadalka Eebbe. waxaa isla sanadii 1996 uu la bilaabay dugsi Quraan dugsi hoose oo ahaa Imaamu Nawawi Boosaaso, taasoo keentay inuu ka qalin jabiyo sanadii 2000, oo la macno ah inuu 4 sano ee loogu talagalay ku dhammaystay dugsi hoose. 2000 waxa uu bilaabay dugsi dhexe oo uu ka bilaabay iskoolka aadka looga jecel yahay Imaamu Shaafici. waxa uuna dugsi dhexe ka baxay 2005. waxa uuna Shaafici ku qaatay dugsiga hoose si dhammaystiran. maadaama Naaleeye ahaa arday jecel waxbarashada, iskoolo badan oo u galay si uu u helo waxbarasho ka tayo fiican tii markii hore u haystay. waxa uu sanadii 2005 u wareegay dugsi sare Xamdaan ee magaalada Boosaaso, taasoo keentay inuu ka qalin jabiyo sanadii 2008. Naaleeye Yuusuf Shire waxa uu sanadii 2008 galay jaamacadda East Africa University of Boosaaso, faculty-ga education-ka qaybta biochemistry-ga. waxa uu dhameeyey sanadii 2012, waxa uuna dhiganayay 4 sano. Naaleeye Yuusuf sida ka muuqata taariikhdiisa waxa uu ahaa arday si xiriir wax u barta. sidoo kale waxaa la sheegaa inuu ahaa arday aan aqbalin wax kastoo qalqal gelin kara waxbarashadiisa. Naaleeye Yuusuf Shire waa macallin khibrad dheer leh oo ku soo jiray macallinimo in ka badan 14 sano. waxa uu leeyahay khibrad macallinimo. primary school waxa uu dhigay 2 sano, intermediate 4 year, informal education 2 year, high school 9 year.